السلام عليكم وأريا أي جعلتي نفتي ذكونا قبودي سأسترتد وحن جعلتي إن كنا وذاو qofka caaqilka ah wuxuu heshadaa Allah kaligii waayo wuxuu gartaa inuu adduunyadan ku soo biiray kaligii una ka bixi doono kaligii raaxada qofka caalimka ah uu ku haysto cilmigiisa ma haystaan dadka aruuriyay maal ku filan laha magaalooyin idil cilmigu waxa uu ka fiican yahay cuntada iyo cabitaanka sida ay naftu jeceshahay maxaa yeelay cilmiga waxaad ku raacaysaa nabi maxamed calayhi salaatu wassalaam halka cuntada iyo cabitaanka aad kaga dayanayso xayawaanka u noolow sida uu ku farayo caqligaagu laakiin ha u noolaan sida ay naftaadu jeceshahay maxaa yeelay nafta waxaa ku lamaan shaydaan cilmigu waxa uu ka macaan yahay cuntada iyo cabitaanka sida ay naftu rabto maxaa yeelay dadka culimada ah waxay dhadhamiyeen waxa aad ka dhadhamisay cuntada iyo cabitaanka wayna ka tageen oo raadiyeen wax ka macaan laba shay midka macaan waxaa garta qofka soo wada tijaabiya laakiin ma garto qofka hal mid uun ku koobnaado haysta wax kasta oo adduunyo ah oo aad ku faraxdo waxaa qasab ah inay murugo u dambayn doonto maxaa yeelay waxaa lagama maarmaan ah inuu maalin uun ku dhaafi doono ama adiguba dhaafi doonto camalka wanaagsan isagu markasta wuxuu ku horseedi doonaa farxad aakhiri iyo mid adduun maxaa yeelay waxaa raalli ka ah allihii abuuray murugada iyo farxadda dadka dhammaantood way shaqeeyaan waxayna u shaqeeyaan si ay naftooda farxad ugu raadiyaan laakiin waxaa yar inta cagta saarta waddadii saxda ahayd ma jiro hal mowqif oo isku waafaqsan yihiin aadamuhu oo aana ka ahayn inay naftooda murugada ka saaraan sidoo kale ma jirto hal waddo oo lagu gaadho halkaas oo aana ka ahayn dhanka Rabbi subxaanahu wa tacaala